waxaa jiri jiray beri baa waxaa israacay jaamac iyo geedi waxay wada saarnaayeen dameer si ay suuq wax uga soo gataan. markii ay muddo wada saarnaayeen ayaa waxaa ka soo horbaxay nimankii ayaa ku dhaga hadlay oo ku yidhi waa maxay labadan doqon ee dameerka miskiinkaa wada saaran. jaamac ayaa isla markiiba ka degay dameerka oo hoggaanka u qabtay saaxiibkiisa si uu wado. markuu cabbaar ku waday ayaa waxaa ka soo horbaxay gabdhihiina waxay ku yidhaahdeen bal ayaga wiilkan doqonka ah ee saaxiibkiisa ka weyn lugaysiinaya asagana dameerka saaran. geedi ayaa ka soo degay dameerkii saaxiibkiisa ayuu u sheegay in labadooduba ay korin dameerka keligiisa uu socdo. markay saddexdooda wada socdeen ayaa waxaa ka soo horbaxay odayaashii ayaa haddana ku dhaga hadlay oo ku yidhi waa maxay dadkan aan garanaynin sida dameerka loo isticmaalo. markii ay suuqa soo gaadheen oo ay fadhiisteen ayuu geedi weydiiyey jaamac, saaxiib maxay dadku inagu dhaga hadlayeen? jaamac ayaa ugu jawaabay, saaxiibkayga aan jeclaayo waxaan ku baryayey casharka nolosha ugu muhiimsan kaasi oo ah in haddii aad istiraahdo dadka wada qanci ama raaligeli in aadan raaligelin karin.